gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo iyo wafdi culus oo hogaamin ayaa socdaal hawlo shaqo ku tagay deegaamada xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya ee gobolka Togdheer waxaana socdaal ku gaareen degmada Beledhig halkaas oo ay ka jirtay xiisad ka dhalatay falal daandaansi oo ciidamada liyu booliisku gudaha ugu soo galeen degmada Beledhig waxaana xusid mudan in gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ka hor intii aanay tagin degmada Beledhig ay halkaas hore u soo gaareen cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland iyadoo dadweynaha reer Beledhigna ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan markii uu gudoomiyaha gobolka Togdheer gaaray degmada Beledhig waxa uu kulan ballaaran la qaatay dadweynaha reer Beledhig iyadoo ujeedada kulankaasina ahayd in la isku wacyigeliyo ilaalinta nabadgelyada labada wadan waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay cuqaash iyo odayaasha degmada Beledhig haddii aanu nahay anagoo ku hadlaya magaca degmada waa noo farxad ciidamada Soomaaliland soo gaaray degmada mas'uuliyiinta waata dhamaantooda aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin shaqadiinina waa gudateen waxa halkan la isugu yimi dhibkii ka dhacday ee halkan leedinku soo gurmaday codkay aad soo bixiseen ee aad nabadgelyo ahaanta wixii aad dareenteen ka soo bixiseen ayaa si degdega leedinku soo gurmaday imankana leedinku yimi leedinkuna barbar taagan yahay reer Beledhigow taariikhdaasi waxay ku sugan tahay warasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo ninka sida inuu soo shaqeeyay ee maanta amnigiina subay ee maanta ciidamada keenay ee maanta aan xalay iyo caawa ayna isku mid ahayn ninka ka soo shaqeeyay waa warasaabka gobolka Togdheer waxa la yiraahdaa calankii Soomaaliland oo taagan baan ina yara askari wax maxba kaga ma dhex jirin soo qabtay googooye waa gubay markuu dildilaaci waayay buu gubay waxa soo dadina way joogeen waxaanu ilaalinaynay nabadgelyada Itoobiya la soo dhaweeyo hal nabadgeliyo hal daayo hal dhawro waliba hal loo dulqaato waxaan leenahay ciidanka Itoobiya ay noo soo dirtay ama kililka shanaad ay noo soo dirtay mas'uuliyiinteedu ciidanku waa ciidankayagii in laga jiheeyo oo xumaanta iyo qancanqantaynta lagu sameeyo laga jiheeyo dadka shacabka aan waxba galabsanin iyadoo aynu maanta ka wada warhayno dhibaatada ay gaarsiiyeen dadka shacabka oo aanu tacsiib ballaaran u dirayno ee jaamacadda bad lagu laayay oo ciidanka liyu booliiska ay ku laayeen shacabka Beledhigna wuxuu ka gilgilanayaa in sidii shacabkaas oo kale dhima ciidanka booliisku ay u laayaan bay uga baqayaan sidaa darteed waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa ciidamada Itoobiya iyo madaxdooda iyo mas'uuliyiintoodu inay naga jiheeyaan ciidanka ay noo soo direen ee goobaha keeneen ee wax magaratada ah ee dadka shacabka leenaya geestoodana waxa kulankaasi ka hadlay taliyaha qaybta 12aad ee militariga ee gobolka Togdheer taliyaha ciidanka asluubta iyo waliba taliyaha booliiska halkan waa Beledhig maamulka gobolku Togdheer iyo ciidamada qalabka sidee halka yimi waxay u yimaadeen waa heer nabadgelyada Beledhig ama meel kasta oo kamid ah jamhuuriyadda Soomaaliland waa waajib qaran oo ina saaran ma ogolin mana dhici doonto in qof reer Soomaaliland meel uu joogaba in cid ku dibindaabiyeyso ma dhacayso inagu cidna ku duuli mayno cidna waxba ma yeelayno cidna ku xadgudbi mayno laakiin waxa weeyaan qof reer Soomaaliland in uu lagu xago ma ogolin waxaynu isku ognahay hadii Ilaahay yiraahdo inaynu inagu ka shaqeynayno noqono kuwa ka shaqeeya amniga iyo nabadgelyada iyo wanaaga kuwa ka shaqeeya inaynu noqono ayaynu isku ognahay cidii soo kordhisa waxaan inta ahayna waxaynu indha fiiqan baynu ku wada arki doonaa insha Allah waynu wada arki doonaa wala wada arki doonaa talaabana waynu ka qaadi doonaa ugu faraxsanahay inaanu idan kala qayb qaadano hadday farxad tahay iyo hadday muxuu ahaa yool iyo muxuu ahaa calool xumo tahayba inaanu idan kala qayb qaadano waftihaan aad baan ugu faraxsanahay runtii gabagabadiina waxa kulankaasi soo xidhay duqa degmada Burco Maxamed Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo waxaan taasi u diraynaa tiiraaya alle dadkii lagu laayay aan waxba geysanin ee lagu laayay jaamacadda bad dadka waxa sameeynaya loo aaneyn maayo dawladda Itoobiya loo aaneyn maayo waa dad wax ma garata ah oo
garaadkoodu siiyey inay sidaa wax u galaan maalin dambe dhici mayso in ilmo yar halkaa intuu qori soo lalansado intuu sidaa isu ruxo inuu balidhiig dhex maro biidni illaahi dhici mayso annaga gurmadkayagu iyo imaatinkayagu waa inaanu moral iyo idinka idin dhisnayhayd inaanu niyadda idin dhisno inaanu nabadda sugno xuduudaha somalilan ee gobolkan togdheer nabadda etoobiya ay ku naaloonayso waa midda somalilan taallo wey nabadda somalilan ku naaloonaysana waa midda etoobiya taallo wey waynu isku nool baynu nay labadeennuba waynu isku xidhannay waynu u wada baahanay nabadda dadkii sida arxandarrada ugu dhintay jaamac dubbay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay naxariista janno ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan haynaga siiyo dhibtu waxay wax ka dhaceen waxay ahayd deegaanka etoobiya ku taalla laakiin dadku ways yihiin weeye somalilanna way ahaayeen waayo waxaan ku caddaynayaa dhaawacoodii maanta degmada burco ayay yaallaan dadkii ka soo qaxay ilaa gaashaamo maanta duruqsi bay la joogaan xaaji saalax bay joogaan markaa dad kale maaha waa dadka yagi weeye dadku etoobiya waynu labada dhinacba dad etoobiyana xagga way joogaan dad somalilandna way joogaan wixii ay waxaasi ku dhaceenna dowladda federaalkii way dabagelaysaa waanay baadhaysaa insha allah biidnillah ciddii ay ku caddaatay ciddii dembiga ay lahaydna baryaha dhagaheennu may maqal caruur iyo dumar la xasuuqo birmageydad xaaraam qof dumar in xabad lala dhaco oo fadhida gurigeedii xaaraam calayk may dhicin laakiin hadday dhacday dib u dhici mayso intaasi kadib gudoomiye qaba iyo waftigii uu hogaaminayay waxay u kicitimeen dhanka degmada Riixidho halkaasi oo lagu soo dhaweeyay waxaana ay xog waraysi ka dhageysteen maamulka degmada Riixidho gudoomiye qaba waxa uu intaasi kadibna u gudbay degmada Duruqsi halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay waxaana odayaasha iyo waxgaradka degmada Duruqsi ka warameen xaaladda nabadgelyo ee deegaamadaasi ay ku sugan tahay intaasi kadibna gudoomiye qaba waxa uu sii watay safarkiisa shaqo isagoo oo goor dambe oo gobol-dhaci ah u gudbay dhanka degmada xaaji saalax halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay safarka gudoomiyaha gobolka Togdheer uu ku marayo deegaamada xuduudka Somaliland iyo Ethiopia ee gobolka Togdheer ayaa ujeedadiisu ahayd inuu indhayo xaaladda nabadgelyo ee deegaamadaasi maadaama waayidii u dambeeyay ay soo tareeyeen qayladhaan ka imanaysa tuulooyinka ku dharan xadka Ethiopia iyo Somaliland oo sheegay in ciidamo ka tirsan liyu boolisku ay inta badan deegaamadaasi yimaadaan waa Bashiir Ibrahim Qayir Bulsha TV Burco